munaasabadana kulmisay badi haldoorka aqoon-yahanka dhalinyarada iyo haweenka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa waxaa lagaga soo horjeestay sida loo maamulayo shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye oo 4 bisha tobnaad ee sanadkani lagu qabanayo magaalada Hargeysa waxaana dhalinyaradii iyo haweenkii madashaasi ka hadlay ay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyeen inuu baalmaray shuruucda xisbiga kulmiye isla markaasna uu shirweynaha xisbiga afduubtay dhalinyaradan iyo haweenkan waxay sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen inuu sii daayo diyaaradaha Air Arabiya iyo Fly Dubai oo xukuumadda Somaliland dalka ka moodnoocday inay ka shaqeeyaan mudana madaxweyne cid aad u idmatay ama aad u diratay hawshan shirkan xisbiga ee ku qaban qaabinaysa ma aha cidii sidii saxda ahayd oo gaaminaysay waxaanu ku leenahay madaxweyne haddaad isleedahay sanad bahasha u dhigtay de reerkan baad wax ku yeeraysaa wax wada lahaydeen waxa laalo waxaad ku yeeri karaysaa horta ma jirto adigu un baa dhib isu geystay waxa weeyaan waxaan madaxweynaha ugu baaqaynaa inuu faraha ka qaado Air Arabiya iyo Fly Dubai oo hawshooda uu ku dhex jiro uu halka ku daayo shirkii ka dhacay Palace Hotel ee ka soo qayb galeen 600 ergo ee ka kala socday labadeena deegaan ee la isugu dhiibay gacmaha labadeena suldaan iyo shirkii Green Palace Hotel ee Hargeysa ee adiga iyo Cabdicasiis Soomaali aad ka soo qayb gasheen waxaynu ku heshiinay mudane madaxweyne in deegaankayagu uu kugu wareejiyo xilka madaxtinimada dalka kuuna uro naf iyo maal dhankaagana aad adigu wareejisid xilalka shilshilis ee deegaankaagu hayo iyo gudoomiyenimada xisbiga kulmiye mudane madaxweyne waxa xusid mudan in shirka Green Palace Hotel adiga iyo Cabdicasiis Soomaali aad ka balan qaadeen in deegaankiinu fulin doono waxyaabaha ay kula heshiiyeen deegaankaygu waxa kale oo aynu ku heshiinay in dawladda Axmed Siilaanyo ay dhistay oo ay horumarin ballaaran ku samaysay gobolada galbeedka sida darteed adigana waxaanu kugu heshiinay inaad dhisi doontid gobolada bariga waxana waxyaabaha ugu waaweyn ee laga rabay inaad dhistay ahaayeen madaarka Burco iyo inaad horumarisid baahiyaha caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha bariga dalka mudane madaxweyne waxaynu kala ku heshiinay in aad shaqaalaysiin ballaaran u samaysid deegaanada bariga nasiib darro waxaan maanta aragnaa shaqaalaysiin loo sameeyo deegaanada aanu ka soo jeedno daaye in intii wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dalka ku jirtay laga saaray bayroolkii dawladda aad dagaal qaawo ku qaaday ganacsatada kala duwan sida Fly Dubai Air Arabiya geed gaaban iyo geed dheer ba mudane madaxweyne waxaad u fuushay sida aad cunaqabatayn u saari lahayd deegaanada bariga Burco ganacsatadooda balse waxaan ku sheegaynaa taasi inaad ka waantoodo waxa kale oo mudane madaxweyne aad caado ka dhigatay in dhammaan heshiisyadii aad ka baxdo isla markaana aad dadkii ku doortay ee kursiga aad ku fuushay inaad ugu abaal guddo cay iyo aflagaado waxaan leeyahay Muuse Biixi wixii aad nagula ballantay ee aan kuugu codaynay noomaad hambayn ninkii jira wuxuu yiri sidaan kuugu lisay igumaad hambayn waxa weeyaan iminkana farti waa nagu taala oo naga may gooyin labada sane hadhay hadaad wax noogu qaban weydo fartayadan haddana dib wax ugu qabsanaynaa hadii aanu noolahay mood ka shilaanahay ballantaadu waxay ahayd markaad codka naga doonaysay inaad madaarka noo hagaajiso ballantii waad ka soo bixi weyday ballanaad ka soo baxda daayo iyo wasiir ku xigeen ilaa shaqaale hoosaad waad ka daadisay maxay hayteen xilalkii ay hayeen iyo xukuumadii waad ka huftay toosh baad u qaato midmid baad uga saartay waxa weeyaan anaguna mid quraataayo mar quraanu ka saarina Muuse Biixi hal maala gel boqol laga siiyay xisbiga kulmiye hashii markuu caanaheed ka yaabay wuxuu yidhi ilaa gudoomiye ilaa wax walba waan haystaa war ha ku darin awre soo celi baan leenahay Muuse dayac baa ka muuqday xisbigii dayac baa ka muuqday dawladdiina dayac baa ka muuqday sidii aanu dooranay faraha uga qaadnay wuxuu u baahan yahay xisbigu waa geelaasoo kale ninkii ilaalin lahaa ee ragaadin lahaa ee xisbiga isu keen lahaa ee aqoon-yahanka ahaa ee waxgaradka ahaa ee ummadda isku wadi lahaa adduunyada dhammaanteed markuu umiyuhu yaabay 14 buu ahaa ololahaagii ma adduunya aad bixisay yaa uunka wada deeqay ma awoowayaasha ayaa ku arriminayay abaalaa waa Muuse nin xunuwaado kale arxan gooy dadka oomay iyo tuula qalweeyay oo xumada jiiftiyo kursigu ayatiin ma laheega oo ma dhulkoodii miyaana kaga qaaday abaalaa waa Muuse nin xunuwaado kale waxaan leeyahay mudane madaxweyne haddii aanu nahay dhalinyaradii
iyo nusdambeedkii xisbiga kulmiye iyo dadkii mustaqbalka ka rajaynayay xisbiga kulmiye waxaanu halkan fariin kuugu diraynaa madaxweyne caqligaan kugu dooranay waad xaraysay bal inaad soo saarto oo halkaad ku xaraysay ama aad noo sheegtaan kula baadi doonee oo aad dib ugu soo noqoto sharcigii xisbiga kulmiye jujuubkan iyo aftuubkan iyo xisbiga doonaysa maalinta shirka gashay in sacab mooyo olole lagula garab taagnaado aanan rabin xisbiga kulmiyana hadduu jujuubkaaga ku jirayo iyo hadduu cagajugluyntaada ku jirayo iyo hadduu aragti xumaantaada ku jirayaba annagu halkaasaanu ka taaganahay inaanaan imanaynin inaanaan ka qayb ahayn inaanaan dhagaysanaynin inaanaan ku soconaynin fartayada eedi mayno oo horaad noo jidha annagoo saa kuu soo horfadhina oo mudantayadii iyo haldoorkayagii iyo geesigayagiiba ku horfadhiyo fartooda dad badan baa eedaya laakiin fartii eedi mayne adigu ma laga yaabaa 2 sano ku hadhay inaad kursiga eedo xisbigii wuxuu qaaday wadadii xisbiga udub qaaday wadadii burburku cagta saaray madaxweyne xisbiga ku soo celi saaxadiisii uu ku soo aanamaalay ee uu halka ku soo gaadhay dhowr iyo 20 sano ee uu jiray 3 sanadood iyo barkii ay xukuumadani jirtay waxaan ognahay wax qabad bariga loo qabto daayo in waxyaalo badan la gaarsiiyay wadadii ceyrgaawo maalintii halkii lagaga tagay ee uu cali mareexan kaga tagay bay wali maanta taagantay waxay ahayd marshuuca ugu ballaaran ee Soomaaliland ka socday ee ilaahay cimrigiisa dheereeyay Axmed Siilaanyo oo uu ku dheeraday xukuumaddiisina ay dhaxda u xiratay ee wax badan ka qabatay waxaan leeyahay waxaan anagu madaxweyne aragnaa waxa weeyaan hoos u dhac ballaaran iyo horumar la'aan anagu taa macnaheedu ma aha inaanu ku dooranay inaad dhisto gobolada galbeedka ama Hargeysa iyo nawaaxigeeda iyo wixii galbeedka xiga ee waxa weeyaan madaxweyne inaanu anagu ku igmanay xilka aanu kugu dhibanay ujeedadeedu inay ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland oo mid inaanu aragno laakiin taa way noqon weyday ma arko anigu qodob lagu celiyo ama la ilaado aad tiraahdo mar labaad iyo doorta because waxa la waxaad qabatay ama wax la tilmaamo oo gobolkii lagu tilmaamo la ilaado dhalinyarada gobolka Togdheer ay tiraahdo waxaad noo qabatay anagu ma jeedna ama ma arkayno waxaad moodaa madaxweynaha aynu dooranay ee aynu farteena uga codaynay inuu ku koobnaaday Gabiile iyo Arabsiyo iyo Hargeysa jigjiga yarina ku filaatay madaxweyne soo dhaaf jigjiga yar soo dhaaf baanu ku leenahay dalka badidiisi waxay ka xigtaa bari bay ka xigtaa waxaanu ku leenahay madaxweyne haddaanu nahay anagu dhalinyarada xisbiga kulmiye maxay tolo waxaan aad u dhaleeceynaa waxyaalaha nagaga ka soo noqday waxaanu nahay laamigii caddaa aad u martay maanta heerka aad joogto ma nihin dad waxa lagu soo falceliyo waxaan ku sheegayaa madaxweyne annagu waxaanu hayn dhalinyaradii farta ku siisay 2 sano kaaga hadhay xilkii madaxweyne wadanka waa la isugu soo noqon kursigiina waa la iman cidda codka laga doonayo waa dhalinyarada waxaan kaaga ballan qaadaynaa laakiin inaan cod dambana laga helaynin haddaad xusba kulmiye sidaad ku wadidaad ka bedelin waxayna horumar ama maxaan ku dhahay wax qabadan dalka galbeed ma ku sii wadaa halkii madaxweyne horumar ma sii wadaa laakiin bariga dib ma soo edin ma soo jeeso waxba ma qabanin horumarna ma gaarsiinin garoonkayaga halkaas uu ku xiran yahay waxa la waxaad ka qabatay ma jirto magaalada waxa la waxaad qabatay ma jirto dalka waxa la waxaad qabatay ma jirto bariga waxa la waxaad qabatay ma jirto horumarku bariga ka sugayay dalka waa la hadlay jaamac Saleebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco